aniga waxaan soo jiray yartan markay soo fariisto dhalada waa mid yar yaab leh aad dhigaysatay baa soo jiray dagaalkii 2006 ee ay galeen Lubnaan Xisbullah nimanka loo yaqaan iyo qaxootiyaal reer Falastiin u badan iyo dawladda Israa'iil ayaa dawladda Israa'iil waxay isticmaali jirtay dayuuradaha F16 ka iyo F15 ka oo ay Lubnaan waxba ka qaban karin laakiin bariga waxa ku gacan sareeyay Xisbullahida iyo kuwan la socda dad badan oo qaxootiyada Falastiin oo la socdo mar walba dagaal joog isaga ahaayo Falastiin iyo Falastiiniin u badan baa ku dagaalamay meel loo yaqaan Masaar Shabcaayo taangiyadii iyo ciidankii lugta Israa'iil way soo gali kari waayeen oo bariga way qabsan kari waayeen dayuuradan qasfinaysa oo weeraraysa Xisbullah iyo hareeraha iyo Junub Beirutna dhul qabsan mayso waxaan xustaa dadka way aragnimadu waa yaab fursad baan u haystay aniga iyo niman macallimiin bariga 2006 gaal kacayo baan joogno seminar 20 maalmood boqolaha ay noo qabatay UNESCO bir liiraado markaas waxa dagaalka macdal cishaaga aan soo fadhiisan jirnay ilaa 10 habeenimo wixii danaynaya waa daawan jireen dagaalka soo socda bini aadmiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala fahmadu kala siiya dagaalka dhinaca Lubnaan waxa wariye ka ahayd gabar yar oo wali bini aadmiga Carabta afka Carabiga wax ku hadla ay ku dheertahay qisadeedu aniga laftiga waa la yaab jiray gabadha yar aftahamada Ilaahay siiyay iyo fahmada Ilaahay siiyay waliga nooca ma arag maalin bay warbixin diyaarisay markii Israa'iil waa Al Jazeera maalin bay warbixin bixisay gabadha horta waa gabadhii bixisay ahayd lil qissa baqiya waliga intaan af Carabi ku akhriyay wax ka sheekeeya iyo wax yiraahdo kelimada lil qissa baqiya hadeerna waaba barnaamij lil qissa baqiya wal qissa baqiya gabadhii yareed baa warbixin bixisay markay wax warbixin bixisay bay waxay tiri dagaalka Lubnaan wuxuu cadeeyay Israa'iil waxa ku gacan sareysaa cirka dagaalka Lubnaan waxa uu muujiyay istaraatiijiyadaha dawliga ah inaan cirka lagu dajin ee dhulka lagu gooyo dad miris xaway Israa'iil way jabtay mar haday bariga soo gali kari waday oo ciidankeedii lugta hal caabiyay markii damana arintan iyadoo camalaya waxay ka dhacday qasay ka dhacday wali waxay ka hadhi laayihiin shabkii muqaawamadii madaxa adkayd ee Sayid Maxamed iyo intii la socotay ay 25 sano ugu geysan kari waayeen bariga bay cirka uga geysteen reer galbeedku ilaa iyo imanka wuu ka hadhi laayahay faa'iidada wariga 10 ka qaateen jabintii dayuuradaha ay Sayid Maxamed ku jabiyeen ilaa yoomina hada wali way ka hadhi laayihiin qiimaha ay askariga iyo guusha ay u lahayd way ka hadhi kari laayihiin oo wali waxay aaminsan yihiin in dayuuradu wax ku jabiyaan 10 fiican bay ka barteen markaas arintaas noocaas gabadha waxa loo jiray wariya Katia Nasir Jazeera la keenay laakiin waxaan isla qoysaskooda waa u diiday ma kuwa warbixinaha sameeya looma ogolaan inay ka hadasho dhalada inay ka hadasho looma ogolaan aniga waxaan soo jiray yartan markay soo fariisto dhalada waa mid yar yaab leh aad dhigaysatay baa soo jiray garan maayo ma sunniyiinta ahayd ma kuwa shiicada bay ahayd ma qolada duruusta bay ahayd ma moroniska ahayd garan maayo marka waxaan ku xustaa faa'iidada dawladaha reer galbeedku ka heleen waxa loo yaqaano dayuuradaha ilaa yoomina hada reer galbeedku ka hadlaayay Iran Mareykanku markuu leeyahay waa weeraraya laba markab oo kun dayuuradood ku dhow saarantaa isku haleynaya ma ciidan bari u haya iyo ciidan baxri oo weeran kariya ma jirto marka wanaaga ay ka heleen iyo guusha ay ka heleen ilaa yoomina hada way maalayaan baa la oran karaya